ninka ayaa fiiriyey wejiga boodhka wuuna isla markiiba wax walba fahmay. boodhkan wuxuu si sax ah ugu eg yahay gabadhoodii marxuumka ah. maalintaas kadib ruuxda haweenaydu waxay u muuqatay mid si buuxda u soo kabatay. waxay goyn jirtay cidiyaha boodhka, timo ka jartay, jacaylkeedana ku shubtay. kadib markii ay nadiifisay oo dhar gashatay, waxay u muuqatay sidii gabadhoodii soo noqotay. markii uu ninku garwaaqsaday in tani tahay nooc ka mid ah daaweynta boodhka, isaguna wuxuu bilaabay inuu u dhaqmo sidii labaduba waxay la tageen boodhka meel kasta, waxay wada dukaamaysteen, safreen, xitaa sawirro qoys qaateen, sidii gabadhoodii run ahaantii ay gabadhu gaar ahaan waxay u muuqatay mid ka tagtay hooska xanuunka ee hore. waxay iibsatay mashiin cusub oo dhardhaqida sidii ay nabad ugu samayn lahayd wixii dhacay. haweenaydu waxay uur yeelatay. muddo dhowr bilood ah kadib, gabadh yar ayaa dhalatay. dabcan boodhkii waxaa la dhigay meel la iska indha tiray oo la dayacay. ugu dambayn waxaa lagu dhex milmay alaabta carruurta kale, gebi ahaanba la iloobay. 5 sano ayaa laga joogay, gabadhii yaraydna way kori jirtay. maalin maalmaha ka mid ah, gabadhu si kama ah u shubtay dhagaxyo muraayad ah oo dhan dabaqa, midkoodna wuxuu galay armaajo. sidan ayay ku heshay boodhkii 5 sano la qariyey. markay aragtay boodhka, hooyadu aad ayay ula yaabtay. gabadhoodu xitaa magac buu siisay. laakiin timo miyay dheeraa ka hor? ciddiyihii hore loo gooyey hadda miyay dheeraadeen? tan iyo maalintaas waxyaabo yaab leh ayaa ka bilaabmay guriga. timo dhaadheer ayaa si lama filaan ah uga soo muuqda. gabadhoodu waxay bilaabatay inay la hadasho boodhka sidii uu run u ahaa. maalin maalmaha ka mid ah, saaxiib ay guri u timid ayaa la laabtay iyada oo calaacalaha ka buuxa qaniinyo. gabadhoodu waxay sheegtay in boodhku qaniintay.